wanaagsan daawadayaal halkan waa telefishinka Risaale Muqdisho ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka caawa. Waa 21-ka bisha 12 sanada 2020 qodobadeena waxa ugu waaweyn. Shir u dhaxeeya musharaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya doondoonaya ee gaar ahaan mucaaradka oo magaalada Muqdisho maanta ugu furmay qodobada ay uga hadlayaan barnaamijkan idinku soo gudbin doona hadii uu rabidmo. Qodobada kale barnaamijkan idinku heerana waxa kamid ah khilaafka u dhaxeeya gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble oo cirka soo shareerayay iyo gudoomiyaha aqalka sare oo magacaabay guddiga doorashada xildhibaanada gobolada waqooyi ee Somaliland. Barnaamijkan idinku soo gudbin doona hadii uu rabidmo. sidoo kale waxa barnaamijkan kaga bogan doontaan hadii uu rabidmo munaasabad lagu xuseeyay maalinta macalinka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho caasimadda dalka waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda federaalka Soomaaliya. Barnaamijka dhacdooyinka ayaa kaga bogan doontaan hadii uu rabidmo. Qodobada iyo qodobo kale muhiim ah ayaan barnaamijkan idinku haynaa saaxiib yaal aniga Bashir Cabdiraxmaan ayaa soo jeedin doona. Shukri Cadow kaamirada ayayna joogtaa. Ku soo dhawaada barnaamijka. habeen wanaagsan daawadayaal mar kale waxaad inaga daawanaysaan telefishinka Risaale magaalada Muqdisho. waxaan barnaamijka ku hormari doonaa mas'aal ku bilaabi doonaa hadii uu rabidmo magaalada Muqdisho caasimadda dalka maanta waxa ku furmay shir u dhaxeeya musharaxiinta xilka madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya doondoonaya gaar ahaan mucaaradka. shirkan waxa uu socon doonaa muddo 3 maalmood ah. hogaamiyayaasha mucaaradka ayaa maanta shir ugu furmay magaalada Muqdisho caasimadda dalka waxaana looga arinsanaya arrimaha la xiriira guddiga doorashooyinka dadban oo in badan oo kamid ah iyagu ay sheegeen inay ka soo horjeedaan. shirkan ayaa socon doona 3 bari waxaana kamid ah qodobada looga hadli doono sidii loo heli lahaa guddi dhexdhexaad ah maadaama guddiga hadda jira ee lagu eedeeyay inay yihiin taageerayaasha madaxweyne Farmaajo iyo taliyaha Fahdi Yaasin. hogaamiyayaasha shirka ka qayb galayana waxaa kamid ah hogaamiyaha xisbiga dan qaran Daahir Maxamuud Geele, hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Shukuur Warsame, ra'iisul wasaare hore Soomaaliya Xasan Ali Khayre, labadii madaxweyne hore Soomaaliya Xasan Ali Khayre, Shariif Sheekh Axmed, madaxweynayaashii hore ee maamulka Galmudug iyo Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo Cabdikariin Xuseen Guuleed, hogaamiyaha xisbiga Elias Cabdiqaadir Cusooble. hogaamiyayaashan shirkan ugu soconaya magaalada Muqdisho caasimadda dalka ayaa dhamaantoodaba waxay si isku mid ay kaga soo horjeedaan guddiga doorashada ay dawladdu magacaawday iyagoo sheegaya in guddigaasi aysan ahayn mid dhexdhexaad ah. waa hagaag isla wararka la xiriira doorashooyinka ayaan ku guda jirnaa. gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa magacaabay xubnaha doorashooyinka xildhibaanada gobolada waqooyi ee labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka soo galaya iyadoo taasi ay muujinayso mas'uul si kacayso khilaaf ku dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan gudoomiyaha aqalka sare iyo madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble. gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdulaahi ayaa dhameystiray maanta magacaabida 8 xubnood ee guddiga deegan doorashada xildhibaanada ka soo jeeda gobolada waqooyi Somaliland isagoo horeyna u magacaabay 4 xubnood ee federaal ee doorashooyinka khilaafaadka. gudoomiyaha ayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ka dalbaday in xubnahan lagu daro guddiga doorashooyinka qaranka. waxa cirka isku sii shareeraya khilaafka u dhaxeeya Cabdi Xaashi Cabdulaahi iyo sidoo kale hogaanka sare ee dalka madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble maadaama ilaa tan aysan jirin tabashooyinkii hore soo jeediyay Cabdi Xaashi aysan waxba ka qabanin ra'iisul wasaaraha iyo madaxweyne Farmaajo. gudoomiyaha aqalka sare ayaa horey madaxweyne Farmaajo ugu eedeeyay in uu doonayo inuu afduubto doorashada xildhibaanada ka soo jeeda gobolada waqooyi ee Somaliland. barnaamijka dhacdooyinka ayaa daawanaysaan. hadii aan magaalada Muqdisho aan dib baan ugu soo noqono magaalada Muqdisho caasimadda dalka waxa uu shir ugu furmay dad kor u dhaafaya 90 qofood kana kaylamiyada gobolada dalka gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed iyadoo shirkaasi ay daafurtay wasiirka wasaaradda haweenka ee dawladda federaalka Soomaaliya. wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwa Xaniifa Maxamed Ibraahim ayaa magaalada Muqdisho caasimadda dalkaasi shirkaasi ugu furtay 100 ergo oo ka kala yimid dawlad goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir. furitaanka shirka ayaa waxa ay jeedisay hadal ku aadan waxyaabaha shirkaani oo salka ku haya iyo qodobada muhiimka ah laga hadli doono. wadankeena
bulshada Soomaaliyeed gabdhaha waxay ka yihiin boqolkiiba 50 iyo in ka badan sida lagu qiyaasay. sidaas darteed waxaa laga maarmaan ama muhiim ah inay yeeshaan qorshahan Somali Women Charter sida inoo sheegtay Sahra waxaa la waafajiyay qaraar ka soo baxay golaha ammaanka 2000 kaasoo tiirsigiisu yahay 1325 ama 2325 kaasoo ka hadlayo haweenka iyo nabadda. dalkeeni wuxuu ka mid yahay dalalka saameynta ku yeeshay dagaalada ahliga ah. sidaas darteed waxaan u baahanahay inaan ka shaqeyno marka hore oo ugu horeyso ay noo noqoto nabadda. waan ognahay gabdhaha inay door wanaagsan ama door fiican ay ka qaadan karaan sidii loo aanan lahaa mar kale nabad ay qayb ka noqon karaan dib u heshiisiinta sidoo kale xalinta khilaafaadka. waxaa kaloo muhiim ah oo ku jiro alliance ama xulufaysi waana arrin muhiim ah oo ay u baahan yihiin in gabdhaha Soomaaliyeed ay yeeshaan iska warhayaan iskaashtaan oo la wada shaqeeyo. waxaa kaloo ku jira protection oo ah in protection ay gabdhaha helaan. waxaa ku jiro sidoo kale in la helo prevention ka hortag. waxaad ogtihiin hadda waxaa wadankeena aad ugu soo batay tacdiga oo loo geysanayo gabdhaha. maalin dhaweyd waxaan ku soo booqday isbitaal Digfeer gabar yar oo aad dhibaato loogu soo sameeyay. isla Muqdisho ayaan joognaa daawadayaal meel walba joogtaan habeen wanaagsan aan idin leenahay. magaalada Muqdisho caasimadda dalka waxaa lagu qabtay munaasabad lagu xuseeyay maalinta macalinka oo ku beegan 21 bishan sanad walbana la xuso. wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya magaalada Muqdisho ku qabatay kulan lagu xuseeyay maalinta macalinka Soomaaliyeed iyadoo si weyn ay ugu soo qayb galeen macallimiin iyo mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare dowladda federaalka Soomaaliya. wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada Cabdiraxmaan Jaabiri ayaana ka hadlay kulankaas iyo muhiimadda uu u leeyahay maanta macallimiinta Soomaaliyeed iyo guud ahaanba dadka Soomaaliyeed. waxaa sharaf ii ah waxaa wasaaradda waxbarashada hidaha tacliinta sare ammaan iyo sharaf iyo bogaadin u ah in ay weyneeyaan maalinta macalinka Soomaaliyeed. run ahaantii waa ka hadlay macallin markii laga hadlayo taariikh fog ayuu leeyahay gaar ahaan diinta islaamka waxaa macallin noogu ah nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam. sidoo kale nabigu wuxuu yidhi calayhi salaam innamaa bu'ithtu liutammima makaarim al-akhlaaq. macallimiinta waxay salka ku hayaan in ay ka shaqeeyaan dadka wax baraan akhlaaqda iyo wax wanaagsan ay baraan si loo helo jiil wanaagsan oo diintooda yaqaana wax cilmiga kale oo adduunkan wax ka yaqaan. marka taariikhda macalinka Soomaaliyeed kama soo bilaabato dawladaha casriga ah waxay ka soo bilaabataa xilli aad u fog laga soo bilaabo xilligii nabi aadam calayhi salaam ilaa iyo nabiyadii ka dambeeyay oo Ilaahay uu soo diray nabi walba waxa loo soo diray inuu dadka wax baro. marka xilliga hadda casriga ah macalinka Soomaaliyeed waxa loo asteeyay 1974 November markaasoo ahayd kaliya in makaanada uu ku dhaxleeyahay macalinka Soomaaliyeed in la weyneeyo. run ahaantii macallimiinta Soomaaliyeed markii laga soo bilaabo isticmaalkii ka hor waxay ku lahaayeen door fiican in ay ummadda Soomaaliyeed ka badbaadiyaan xilliga isticmaalka oo dawlado badan oo maanta aan ognahay iyo wadamo badan oo islaam ahaa duulaan lagu soo qaaday oo la rabay in lagu faafiyo diin aan ahayn diinta islaamka ayna ku guuleysteen reer galbeedkii iyo kaniisadihii inay ka hirgeliyaan diinta ma taqaanaay markaas ay wadeen. waxaan uga mahadcelinaynaa culimmadii Soomaaliyeed macallimiintii Soomaaliyeed oo u dhabar adeegay ku dadaalay in dadkan diinta ay haystaan oo diinta islaamka ah inaan gacmahooda laga saarin. runtii markii macallin aan ka hadlayno waxa laga maarmaan inaan u duceeyno macallimiintaas oo qaarkood maanta aysan taariikhdana xusin meelna aan lagu xusin oo runtii aan isleenahay ayaga la'aantood maanta heerka aan gaarsiisanahay iyo diinta aan haysano iyo wanaagga naga muuqdo iyo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu nagu karaameeyay inaan haysan lahayn. markii laga soo tagay intaas macalinka Soomaaliyeed door fiican ayuu ka soo qaatay dib u dhiska dalkan
waxaan ogahay waddan hadduusan macallin lahayn horumar ma laha waxaa laga yaabaa dadka intooda badan in uusan macallinka miisaan u lahayn laga yaabo in sidii senator Zamzam sheegtay mararka qaarkood aad loo ixtiraamo madaxda kale laakiin waxaa muhiim ah inaan ogaano macallinka inuu ka makaana sareeyo qof walba wadamada qaarkood adduunka macallinka waxay gaarsiiyeen maqaamkiisa inuu ka sareeyo qofka siyaasiga ah wadamada qaarkood xildhibaanka iyo macallinka waxa mushaar badan macallinka waxaan rajaynaynaa maalin inaan aragno macallinka Soomaaliyeed uu yahay qofka ugu mushaarka badan dalkan looguna ixtiraam badan waxaan ognahay jiilka maanta jooga mustaqbalkooda wuxuu ku jiraa macallinka maanta jooga marka si loo helo macallin tayo wanaagsan waxa laga maarmaan ah dadaalkii uu soo bilowday dawladdan oo ahayd in la helo macallimiin dawladda ay mushaar siiso waan ognahay dalladaha iyo walaalihii kale oo ka soo shaqeeyay in ay waxbarashadeena dhulka ku dhicin oo u mahad celinaynaa laakiin dawladnimada waxa laga maarmaan ah mar walba in dawladda ay kafaalo qaado macallimiinta maxaa yeelay waxbarashada waa mas'uuliyadda dawladda gaar ahaan markaad fiiriso dastuurka ku meel gaarka ah faqradiisa 29aad 30 iyo 31 qofkii dib u akhriyay wuxuu arkayaa waxbarashada asaasiga ah waa waajib saaran in ay bixiso dawladda markaas joogta waan uga mahad celinaynaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilligii uu go'aamiyay oo ahayd in la helo macallimiin mushaarka dawladda qaata laga soo bilaabo 2018 markii lala wareegay iskuuladii dawladda waxaa bilowday macallimiinta inay mushaar qaataan waan ognahay duruufta dhaqaale sanatarada ka hadashay laakiin waxa laga maarmaan ah in macallinka Soomaaliyeed la gaarsiiyo shaqaalaha kale ee dawladda meesha ay joogaan waxaan wadi doonaa dadaalkaas annagoo madaxda mar walba uga mahad celinayno annagoo og bahda waxbarashada iyo waxbarashada inaan marar qaarkood ahmiyadii loo baahnaa aan la siinin inaan qof walba oo siyaasi ah oo raba dalkan inuu xukumo inuu ogaado waxa horumar lagu gaari karo ama ummad lagu horumarin karo inay tahay waxbarasho marka waxa laga maarmaan ah doorkaas soo bilowday in hore loo sii wado oo la helo macallin Soomaaliyeed oo ku xisaabtama dawladdiisa mataqaanay si uu ubadka Soomaaliyeed u horumariyo dhanka kale waxa waajib naga saaran yahay horumarinta macallinka wuxuu u baahan yahay horumarin wuxuu u baahan yahay tababaro wuxuu u baahan yahay in aqoontiisa kor loo qaado maxaa yeelay macallinka waqtigiisa ugu badan wuxuu wax ku bixiyaa inuu dad wax baro asagana waxa laga maarmaan ah in la baro aqoonta maalmaha dambaysa waxay ku socotaa casri tiknoolajiyada horumar ay ku socotaa wax badan oo horumar ayaa jira waxa laga maarmaan marka macallimiinteena inay la jaan qaadaan waxa nasiib darro marka wali inaan gaarsiisnayn macallimiinteena aysan gaarsiisnayn heerkii loo baahnaa ee macallinimada waxaan ognahay imtixaankii u dambeeyay wasaaradda ay qaaday in aan aragnay macallimiin badan oo hadda ardada waxbara oo aanan runtii gaarsiisnayn meeshii aan rabnay maxaa yeelay tayada ardayga waxay ku xiran tahay tayada macallinkaada tayada uu leeyahay yaad waxaad filaysaa ardaydaada waxa ay baranayaan waxaan rajaynaynaa baaritaankaas wixii nooga soo baxay in aan dhaqangelinna hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan kaloo ognahay macallimiinta hadda wax dalkan ka bara in 23% kaliya ay u qalmaan macallinimo taas oo nasiib darro ay tahay laakiin aan ognahay inay keento duruufta dalkan uu soo maray waajibna naga saaran yahay inaan ognahay duruuftaas inaan ku jirno dhacdooyinka aad daawanaysaan daawadayaal madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland ayaa maanta waxa uu dhagax dhigay xarunta hay'adda garsoorka Puntland dhagax dhigga xaruntan ayaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland Axmed Cilmi Ismaan Crash waxa ku yeelinayay mas'uuliyiin ka tirsan madaxtooyada maamulka Puntland xildhibaano iyo wasiirada maamulka Puntland xubno ka socday madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland ayaa dhagax dhigga kadib la hadlay warbaahinta waxa uu faahfaahin uu ka bixiyay dhagax dhiggan iyo sidoo kale dhismaha xaruntan waxay Puntland uga dhigan tahay intaas hadaa ka gudbo garsoorka runtii sida odayaashii iga horeeyay ay sheegeen waa hay'ad ka mid ah tiirarka dawladnimo bay ka mid yihiin runtii aad iyo aad bay maanta farxad inoogu tahay hawshtan dhagax dhiggan aynu dhigayno waxaan rajaynayaa inay dhowaan ay hirgasho
annagu sida wasiirka cadaaladdu sheegay runtii ma aanu garif yarinoo kuwa hadda laga soo furay bari gobolka bari iyo kuwayo gobollada kaleba sidaa uu sheegayo maxay tahay waanu wasiirku sheegayo waa tallaabooyin baanu qaadi doonaa haddii aan la yidhi waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka telefishinka Risaale ee magaalada Muqdisho ayaa daawanaysaan idil ahaantiina waxaan idin leeyahay habeen wanaagsan qaybtii ugu dambeeyay barnaamijkan waan isla soo gaarnay saraakiil ka tirsan booliiska maamulka Puntland ee gobolka Mudug waxa ay shaaciyeen in ay gacanta ku soo dhigeen rag lagu eedeeyay in ay xiriir leeyihiin weerar bam gacmeed oo habeenkii xalay ahaa lagu weeraray ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Puntland kuwaasi waxa ay marayeen bartamaha magaalada Gaalkacyo dhanka maamulka Puntland ee maamusho la bartilmaameedsaday qaraxaasi oo ay ku dhintay hal qof oo rayid ah saraakiisha amniga maamulka Puntland waxa ay xaqiijiyeen in ay baaritaan ku sameyn doonaan shakhsiyaadka haatan gacanta lagu soo dhigay kadibna la soo taagi doono maxkamadda magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug dhanka waqooyi ayaa inta badan waxa ka dhaca dilalka qorsheysan weerarada bam gacmeedyada iyadoo horey duqi magaaladaasi looga dilay qarax lagu dhuftay gaarigiisa ammaanka ayaa maalmihii ugu dambeeyay misbilay dambe waxa uu ahaa mid wanaagsan kadib iskaashi ay sameeyeen labada dhinac Galmudug iyo Puntland lana xiriiray in ay isu kaashadaan dhanka xoojinta ammaanka magaalada Gaalkacyo oo labada maamul koonfur iyo waqooyi bay ka kala maamulaan saraakiisha hogaaminaysa howlgalka laga sameeyay magaalada ayaa waxa ay sheegeen in howlgaladani ay hayeen kuwa qorsheysan la doonayo in gacanta lagu soo dhigo shakhsiyaadka ka dambeeyay bam gacmeedkaasi si looga hortago weerar kale ay ka geystaan magaalada Gaalkacyo barnaamijkiin intaas ayuu ku dhan yahay saaxiibayaal kaamirada hagaagsan shukri cadow farsamadii kooshin cadde nabadgelyo